السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتان جعلهاي رمضان مبارك ميلو بدون تجوتين كسود هذا قحوتي داب channel ما أنتوا حندين هاي وررتي ومهم سنة أو حرية قحوتي كسابسن شركة ما أنت دعي iyo waxyaabihii laga hadlay iyo war farxad u ah dadkii faraha ka baanaha iskabixiyay oo rabaan inay qaxootinimo u go'aan iyo war farxad ayaan u hayaa muuqaalka dhamaystirta iyo qodobadii kale muhiimka ah fadlan dhamaystirta muuqaalka si aad ula socoto dhammaan wararka soo baxay aan ku bilaabo wararka muhiimka ah oo shirkii maanta ka dhacay UNHCR oo laga hadlay dadkan baahanaha oo boono la siinaayo iyo dadkii taartooda ka xirnaa in taar cusub la siinaayo iyo sidoo kale dadkan oo taartooda ku guuray oo soo laabtay haddana rabaan in taartooda dib loo siiyo ayaa rabaa inaan muuqaal ka hadlo iyo sidoo kale dadkii tabaanaleeda ahaay oo faraha qaxootiga oo hadda iska bixiyay faraha kabaandhaha sharcigoodii dhammaan farihi iska bixiyeen hay'adan u qaabilsan alianka oo DRS lahay ay u dhiibeen hay'adani waxay u dhiibtay UNHCR marka qodob muhiim ayaa iidan ka haya insha Allah iyo wararkii ku saabsanaa buufista xeryaha qaxootiga dhaab insha Allah sidoo kale muuqaalka waxaan ku sii sheegi doonaa insha Allah qodobka saddexaad waxaan ka dhigi doonaa insha Allah group 5 ka Canada oo Nairobi oo dad badan oo Nairobi loo yeeray group 5 Canada insha Allah haddii aan tijaaro muuqaalkan insha Allah waan ku soo dari doonaa haddii aan tijaaro wayna muuqaalka ayaan soo samayn doonaa aan ku bilaabo war qodobka koowaad aan ku bilaabo oo ku saabsan dadka baahanayaalka oo ku sugan xeryaha qaxootiga dhaab sida Xagadheer Dhagaxley Ifo maanta Dhagaxley waxaa isku soo banaan baxay dadkii baahanayaalka ahay oo wiligood taar goosanin iyo dadkii taar horaan taartooda ka dhacay iyo sidoo kale dadkii taartooda ku guuray oo haddana dhibaato iyo colaad dib u soo celisay ayaa dhammaantood la isku wada yeeray inay soo qayb galaan inay boono qaataan intaasoo dadka qaar loo sheegay in section loo shaqeynayo maanta waxaa loo shaqeynayo section A section A11 iyo section B saddexda section ayaa loo shaqeynaa oo kaliya maanta laakiin ceebta dhacday waxaa waaye dadkii dhan way iska soo banaan baxeen dadkii dhan way wada imaadeen meesha dad qaar ayaa been abuurinay sheegayeen section A ayay sheeganayeen dad qaar section A11 sheegan mana dirno dadaas section B sheeganayeen Soomaalina sida ula socotiin waxaa waaye maalmaha hore shabta hore ayay rabaan inay ka qayb galaan ma ahan UNHCR waxay sheegtay in loo shaqeyn doono hal nafar laguma tegi karaa leetan markii wax section loo shaqeynayo waxay la wada simay dhammaan dadka ayaa la wada shaqeynay laakiin markaa section waxba la sheegin oo loo magacaabin marka dadka muddo kooban ayaa loo shaqeynay laakiin tan waxaa dhaheen waxaan usbilsoon Ramadaan ayaa lagu jira qeyraysan oo cibaado ah dadka muslimiinta inaa dhibna marab dhammaan ay wada sooman yihiin sidoo kale caruurta ayka naftirkooda inaan baahay iyo qorax ku dilno marabna ayay dhaheen UNHCR iyo qoladan DRS iyo sidoo kale hay'adaha kala meesha qayb galay oo maxaa la jiray boonada u shaqeynayay mid kale waxa waa isdiiwaangelis boono ayaa lagu siinaa lagu diiwaangelinayaa waxaa lagu weydiinaya meesha ka soo guurtay hadda waxyaabo su'aalo yar la weydiinaya kadib boona lagu siinayaa boonadaas waxaa ku sugaysaa boonada weyneed xilli ayaa loo shaqeyn doonaa dadkan kulli waxaa la rabaa system in la geliyo in la ogaado inta kaarkooda ka xiran yahay inta kaarkooda oo ku guuray oo dib u soo laabtay inta fresh waxaas ayaa la rabaa in la ogaado marka la ogaado kadib xal ayaa loo raadinayaa marka xal ayaa loo sida ula socotay dawladda Kenya way diiday in ay dadkan qaxootiga in kaar la siiyo way diiday marka maadaama UNHCR qoladan qaabilsan raashinka oo adduunku qaabilsan WFP oo raashinka macluumaad oo macluulka ka hortagto ayaa shir weyn waxay ku gaareen in dadkan baahanayaalka iyo dadka taarkooda ka xiran yahay iyo dadkan taarkooda ku guuray oo ilaa hadda dhibaato u keentay xeryaha qaxootiga dhaab dib u soo celisay in la siiyo boonadaas ku qaadan doona raashin laakiin boonada ka hor hadda waxaa waalid diiwaangeliyay boono yar ayaa la siiyey hadhooti xilli dambe ayaa loo yeeri doonaa marka loo yeero dadkaas boonada yar hadda haysto waxaa la siin doonaa boono weyn oo caalami ah ee raashin ku qaadan doona ayaa la siin doonaa sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dadkii faraha tabaanaha iska bixiyay oo tabaanahoodii oo iska dhiibay oo buufis rajo weyn ka qabaan dad waxaa jireen falaay si waaye dad waxaa jireen midhol si waaye dad GFA si waaye dad IN si waaye oo buufis si waayeen ayaa jireen oo tabaanahooda qaxootinimo u soo go'een tabaanahooda dhammaan iska wareejiyay dhammaan ku wareejiyay hay'ad u qaabilsan oo xagga dawladda u qaabilsan oo qaxootiga u fadhido oo DRS la horaan DRL jir alien ka bixiso ayay ku wareejiyeen hay'adaasna waxay ku soo wareejisay warqadihii macluumaadka dhammaan waxay ku wareejisay UNHCR ninka u weynaa UNHCR bartashad u weynaa wuxuu dhahay insha Allah follow up ayaan ku sameyn doonaa guddi ayaa imaan doonto guddidaas iyo waxyaabaha loo baahay dhammaan sida u dhaqsiya badan dadka xuquuqda ka maqan waa loo shaqeyn doonaa
marka insha Allah follow up na samayn doona sidoo kale hay'adan oo IRC sidoo kale hay'adda IRCK oo u qaabilsan oo dawladda xaggeeda u qaabilsan xataa refugee u dooda xuquuqdooda refugee IRCK waxay u doodaa xuquuqda qaxootiyaha oo marka la xiro ay u doodaa xagga waxay qaabilsan tahay waxaa la jiray maxkamadaha ay u qaabilsan tahay iidan waxay dhahday follow up ayaan samayn doonaa marka ninka ugu weynaa IRCK ayaa la weydiiyay su'aalo dadka shalidarada iyo jaymanta dhammaan su'aalaha way weydiiyeen waxay dhaheen dadkan oo faraha qaxootiga oo dadkan faraha tabaanaha iska saaray oo raba in qaxootigu duwaan ilaa haddana wax loo shaqeeyay maxaa ka jira arrintaas waxay dhaheen follow up ayaan samayn doonaa anaga dawladda xaggooda dawladda iyo UN iyo waa u shaqo dhaxdooda ayaan ku jirnaa marka dad abukaatiyaal ayaan nahay xuquuqda qaxootiga ayaan u doonnaa maadaama dadkaas xuquuqdooda ka maqan tahay waxaan rajaynaynaa sida u dhaqsiyaha badan inaan macluumaad dheeri aan soo bixino oo shaqadooda loo bilaabo oo loo shaqeeyo nin walbana haddii oo bending waxaa laga saaro calaamadaha baandhaha saaran haddii wixii la xaqiijiyay oo laga qaaday dhammaan wararka warbixinada laga qaaday sida faraha dhammaan waxyaabaha iska xareeyeen haddii xaqiiqnoodaan waxay noqonaysaa in nin walba inuu meeshii buufistiisa maraayay inuu ka bilaabo haddii meritol sugaysay meritolkaada kasii bilaabaysaa haddii bending waxaa laga qaadaya bendingka calaamada ku saaran holly ku saaran ayaa laga qaaday haddii mar laga qaadana riskaada process ayuu noqonaa meeshii laga sii bilaabaya marka waxay dhaheen dadka bulshadaas waxbay iswaalin meesha qaxooti waaye nin xaquuqdiisa la tumanayo malahan arrintan dawadal ayaan samaynana inkastoo hay'adaha ay dhib badan yihiin oo waqti ay qaadanayso processing ay qaadanayso hay'ad iyo dawladba sideeda waqti ay qaadataa marka waxay dhaheen insha Allah waan dadaali doonaa sida u dhaqsiyaha badan nin walban waqtiga wax Ilaahay u qoray ay bixi doonaan marka waxaan rajaynaynaa in xaquuqdooda inay maalin ay heli doonaan marka niyadda khayr ha u sheegaan fadlan haddii aad ku cusub tahay qaxootiga dhab channel fadlan subscribe noo saar like noo saar noo sheeg garay muuqaalkan waana maasada sidoo kale waxaan ka hadli doonaa qodob kale dadkan insha Allah dadkan sidoo kale waxaan ka hadli doonaa dadkan oo Duro 5 la sugaayay in xagga oo Duro 5 ka tanada sugaayeen dad ayaa loo yeeray oo Nairobi ku maraayeen inkastoo Kenya naftirkeeda Nairobi iyo xeryaha qaxootiga dhab iyo Kakuma saddexdaas meel ayaa dadku la maraayeen dadkii Nairobi waa loo yeeray dadaa Meritol loo yeeray dadaa loo approve gareeyay dadkii laakiin qaxootiga dhab insha Allah waa la bilaabi doonaa insha Allah muuqaal kale ayaan soo sameyn doonaa